kulan wacan daawadayaal halkan waa telefishinka SDN TV kusoo dhawaada barnaamijkii gaarka ah oo aan kaga hadlayna taariikhihii kala duwanaa ee dalka waxyaabihii uu gaarka ku ahaa Jaalasiyaad Maxamed Barre sidoo kalena waxyaabihii kale ee dalka ka dhacay muddadii burburka xilligii dawladii kacaanka militariga dagaaladii Ethiopia barnaamijyadan oo marti uu noogu yahay General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ah saraakiishii ugu sarsareysay ciidanka xoogga dalka muddadii kala duwaneed gaar ahaan xilligii kacaanka waxa uu qayb ka ahaa saraakiil aad kaga dhex muuqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligaas oo ciidanka awoodiisa iyo cudadiisa ay muuqatay sidoo kalena xoogaali way arag u ahaa waxyaabihii kala duwanaa ee ciidanka iyo sidoo kale siyaasadii guud ee dalka General soo maalin kale iyo qaybtii afraad ee barnaamijyadeena maxsan waa dhowhay bismillaahir rahmaanir rahiim waxay la maanta inaanu ka hadalno waxyaalihii ninkii odagaha fashiliyay hawshiisii iyo bixitaankiisa iyo waxaas xilligii dagaaladaas iyo waxaas haddee horaan u sheegnay in maaragtay uu ninku afar marxaladood isdaba yaala uu lahaa oo midda koowaad ay ahayd markuu u muuqday isuna muujiyey nin wadani ah oo waayo arag ah oo caqli badan sidiisana oo caqli badnaa ninku wanaga sheegna guulihii waqtiga 5 sano hore wadanka lagu gaaray hoggaankiisii oo waayo arag garanaysa wadani ah oo caqli badan oo hawsha saas u wada guulihii lagu gaaray wanaga sheegnay wanaga nari cadawgaaga caaqilka ah marqaati waa loo qabsadaa mararka qaarkood wanaga ka hadalnay Roberto ninkii la dhahaye Roberto McNamara oo anigu waqtiga aan Ruush joogay wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka ee Vietnam dagaalka Vietnam socday ninkaas sida Ruushka uga cabsanayeen aqliga oo gali maayo su'aalba waa noo sheekay jireen hagaag okay ninkaas markaan marxaladan aan ku jirno oo dalka Soomaaliya waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee adduunka shashada ka daawanayay wixii Soomaaliya ka socday markuu 3 sano hawshii aan wadnay odaygii horboodayay ayuu la yaab waxa meesha ka socda oo soo orday fasax warsaday jiisa la siiyo waa la siiyay markiiba waa yimid hawshii waa meelaha ka socotay wixii la tusay uu yaabay aad iyo aad u yaabay xagga dhaqaalaha kobca ku socday dhismihii wadooyinka iskuulaadka isbitaalada garanaysa qashinka aruurintiisa iyo waxa aad iyo boqolaalo dhalinyaro ah oo hawl la siiyay hawlgal waxaan ku sheegaa waagaas anug kasta wiil iyo gabar oo secondary ka soo baxa oo banaanka la dhiga kama jiro jaamacad iska daawarkeeda shaqa la siinay kulli shaqadu lacag yar la qaadanaya laakiin in baaga moodo ku soo dhacay oo secondary damay ma jiro ma taas kaliya ma ahayn buugaga oo dhan free ah ahaayeen hatta daftarka wax lagu qoro iyo buug iyo qalinka dul saaran dawladda keeni jirtay ma garanaysaa wax la yaabay mucjis ay ahayd aad iyo aad marka ninkaas markuu wuxuu waxaasay ku hirgaleen McNamara dhahay wuxuu yiri mabda hanti wadaaga cilmiga ah oo qaadanay ayaa waxaan ii suura galiyay oo dadka dheegaan ku kacin McNamara hanti wadaaga wala tuso bullshit oo yaqaan san markii hore uu sheegay wuxuu yiri dadka ha ka xaasidin libintooda quraafaadkan ay sheegayso hanti wadaaga male dadka wadaniyada wada iyo waxaas ayaa keenay waxaana dadka libintooda ka xaasidin هذا ماشي عبارة اسكت تورتورين وكتجي McNamara markuu Washington ku noqday wuxuu yiri waxa mucjisaha Soomaaliya ka socda waxaan doonayaa oo u sheegayaa wadamada Afrikaanka
oo la daalaadhacaya dhibaatada dhaqaalaha iyo shaqo xumida iyo cadaalad xumida iyo musuqa la daalaadhacaya madaxdoodu marka hore hadday rabaan inay wadankooda wax u qabtaan iyo dadkooda Soomaaliya ha tageen hana la soo shireen madaxda Soomaaliya hadda wada haddii kalena aad meeshooda weligeeda ha galgasheen $30 oo jeebkiisa ka soo bixi $30 milyan oo dollar oo jeebkiisa ka soo bixiyana gacanka waa soo diray waa ku tabarracay waa uga qayb galayaa buu yiri hawsha socota aad iyo aad wax ula yaabo dhalinyarada iyo dumarkii shaqada ay hayeen aad iyo aad ula yaabo fantastic cadowgaaga caaqilka ah oo noqday oo marqaatay loo qabsaday absolutely socotayo 5 sano saasan ku soo boodnay kuulo isdabayaal ah instrumenta oo maaragtay waxaas u sahlaya ama gacmaha waxaas u fududeynayay maxamed siyaad wuxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo asaguna koritaan xoog leh iyo tababar xoog leh ku socday ay joogeen qowra midowgiisa ka socotay oo madaalayaal ah haddana dowladda Sooviyeedka oo deeqsi ahayd ciidankaas inuu maaragtay wax walba ugu tabarrucayso wax walba ayaga bixi jiray marka laga reebo mushaarka askariga askarta mushaarkeeda marka laga reebo kulli ayaga bixi jiray shidaal meetrada tababar meetra qalab oo dhan garanaysa bixinay hataa caafimaadka iyo waxyaalaha isbitaal iyo inta dhisay markii dambe wuxuu yiri hataa dharkii iyo kabihii nadhibay waa nadhibi jireen ayuu yiri anaa bixinaya kulli arintaas ayaa ku jirtay dawladuna waxay ahayd dawlad deeqsi ah wax walba ciidanka marka waxa loo arkayay laguna sheegay tiro iyo tayaba inuu koranayay markaasna uu u muuqday ciidanka Afrikada madow ugu tirada yar laakiin ugu tayada badan ayaa loo arkay ciidamada xoogga dalka ciidanka xoogga dalka hagaag meeshaas حتى reer galbeedkii waa u riyaaqeen laba waxaad ay diidanayeen oo dhaliilka meesha damogorsiga ma jirto waa dhahayeen oo nin kaliya waxa dhan wata mid labaadna ciidankan ay ka shaki qabeen rashku tababara korayo xoog ku korayo ya Afrikada xun iska malaqmalaqaayo waxyaalaha meeshan wax weyn ka soo socda labadaas marka laakiin progress ka maaragtay tacliinta caafimaadka magaraysa waxa soo dhaqaalaha way taageersanaayeen reer galbeedku labadaas qodob ay diidanayeen labada qodob waa halbowle okay intaas marka la joogo shanadii lixaad la galay ayuu wuxuu rabay inuu marka labadii marxaladood oo dambe oo negative ka ah inuu hirgeliyo oo isaga u gaarka ah alla wada beerka u dhimanay marka ciidanku marka ma noqon karo gacnihii u shaqeynaya arrintaas guracan ma noqon karin waa inuu helaa system kale ama awood kale oo maaragtay arrintaas la fulisa muxuu noqday xisbiga hanti wadaaga gacanka Soomaaliya ayuu noqday xisbiga waa la dhisay golihiisa dhaxal la dhisay wixii iyo booliis iyo wixii dad jinni oo qalabaan oo meel ka yimaadaan la qoon oo kala jeeda oo maaragtay ayaa soo galay oo qaar ka socdo xisbi shuuci ah niman badan oo shuuciyiin meesha ka soo baxay waxaa kuwa calaan casleera oo waqooyi ka yimid marka nimankaas kale fikradda duwan iyo wixii baa meesha soo galay meeshaas waa meesha uu jecel yahay dadku iska soo horreeran jeedo inuu dhexdhexaadiyo galnaa isku wada diro waxaasuu jecel yahay odagu waa jeclaa hagaag ciidankii hadda lama celi karin way socday oo korayay waxaa kaloo ayadan hay-ad weyn oo koraysa ahayd wasaaradii informationka iyo howlaha warfaafinta iyo howladii waaberiyo hadda markii hore 5 sano hore iyo kiciyay dadka dhan kiciyay barnaamijka la yaab la fantastic
dib looma celi karin iyagu waxoodii wateen ciidankiina koritaankiisa waa watay kuwaasoo waxay hawshoodii wateen waxa isdiidaya marka waxa uu waday iyo waxa qolada labadan qolo ay wadeen ayaa isdiiday iyo waxa xisbigu wada in kala qabaa my god markii dambe de wixii ninkii waxaa la arkay inuu qabiili yahay waxaa la arkay inuu yahay maarag dictator aan diin lahayn uu yahay ninkii waxaa la arkay inuu yahay wax kastoo xun oo dhan bilaay oo dhan saddexdii marxaladooda dambe inuu yahay la garan arrintaas yaa marka u adkaysan waayey nimankii reer goboleedka u adkaysan waayeen in wixii hore u adkaysan waxaan dambay wadaan waxaan dambay la wadeen ninkan maagnamara aan kuu sheegay laftiisa ayaa ku lug lahaa waxaa la yidhi meesha laga cuno qabateeyo xaggee waay waxaa laga ciidamada horta la baktiyo ciidanka lugta loo dhawaa karaa le ciidankii cirka la baktiyey ciidankii badda la baktiyey ciidankii dhulku hawshiisii watay aniga kuu sheegay intaasoo magaalo la qabtay xagga lagu booday xagga markaasaa markay marayaan marxaladdii ugu dambeysay la joogo ayuu maaragtay ayaa la yiri ayaa loo yeeray maxamed siyaad waxaa u yeeray qoonkii xagga ruushka inaan idiin sheegaan u malaynayaa la yiri waddankiinnii aan idinka ballan qaadnay aan ku taageerno waa haysataan 95% laba magaalo idinka maqan laba magaalo labada magaalona waa isugu kin yeeraynaa horta intaad haysataan qaata 98% qaata annaga ka dhaadhicinayna maanta hadalkayga ma diidi karo mingisto marka adinku qaata labadaas magaalona waa isugu kin yeeraynaa markaad ugu khasaartaan midaad helaysaan mid baad helaysaan kusii 99% dhulkiinii aan idinka ballan qaadnay aan la qabano diyaar waxaan idiin soo kordhinaynaa hubkii iyo wixii waxyaalaha ay markii sheegeen waxay ku BM-ka baalkan baabuurkan afar xabaa markii hore naloo ka onaysan Ethiopia waxa laga yaabay afartaas xabaa ahayd waxa ka yaabay 42 idiin keenayaa oo badda ku soo jira intaanu taangaalka cusbaan taangaal cusbaan keenaya artillery cusbaan keenaya markaas xagga dhaqaalaha Indian Ocean-ka wuxuu ku tala jiray inuu 8 dekedood oo yar inuu ka sameeyo oo kalluumaysi badan shirkado kale oo dadkii oo qaxootiga waxaan dheelaa abaartii daba dheer inuu maaragtay dadkii la dajiyo oo dekedahaas loo furo kalluunkuna oo soo qaato suuq isaga geynaya marka horena isaga soo jilaabay annagu aan lacag badan ka helno marka uu yaraatan miisaaniyadiina wuxuu yiri hadeer maanta $300 1 bilyan waa gaarsiin 1 bilyan waxaan dheelahaa oo $300 1 bilyan oo dollar waa gaarsiinaynaa idinka dhawaad ku filnaanaysa agriculture-ka ay wixii la samaysta wax dooyo oo maaragtay meel lagu sameeyo ayuu diyaariyay wixii xisaasay noqdeen aad iyo aad wuxuu bahal isku dabaridan ayay hor dhigeen maxamed siyaad ay leeyihiin intaasna ku sameynaa dhulkiina waa haysataan saxiix waxaad sameynay waa joojinay dagaalka aan hadda macnaha weynku ugu fadhiyo oo sii wadi karin laantaya jooji kuwaasaan leenahay waa idinka joojinay waxaan hora ayaguna waa yeelayaan ma uu diidi karo jooji wuxuu yidhi haddaan lay tusin Brezhnev ma yeelayo Brezhnev waa ninka xogayaha guud meesha asagoo hanti wadaaga uga xagga dhinjigiisa wafdiga loo soo diray waxaa ku jira ninkii prime minister-ka ahaa Alexei Kosygin la leeyahay abqari ah oo yeelo wayna wax dhanba kala waday 20 sano 30 sano soo ah hawshaas iyo laba kale oo la socotay labada kale mid qaraab haayo midka ideolojiga xisaabsana
oo suslafa la dhahayo dee shuuci xumo googo-ay ah oo yiri soomaalidu waa muslim mana horena uma socoto dibna uma socoto maagtayna ku jirtaa saasay leedahay annagana waana baabale warkooda aan ka baxno ninkan dadka laayay oo mingista la leeyahay adoonka yarka aan kor u qaadno marka kii kale asaguna waadna wuxuu yiri maya haatan aan waxaasoo efoodahan gelinay aan cidna uga dhaqaaqno laakiin dadkooda oo maaragtay dowladda madaxdeeda inaan idhaahno wax ka bedela oo systemkeeda wax yar oo na dhiirigeliya ay sameeyaan intaasaan ka dalbanaynaa laakiin waxaa la yiri ninkii barnaamijka wuxuu yiri warkaas xagga inoo dhiga ninkaan intaan hor dhigayna hadduu diido haddii wax kala tegayna hadduu qaatona ahlan wasahlan markaasna way dareemeen ninka in meelo kale munoowar uga socoto waa loo yeero waxaa la yidhahay jaalisiyaad intaanan ku wadaa uu yiri ninkii barnaamijka saxiix markaasna barashneef lagu geynaa ayadoon barashneef la geyn waxaan saxiixaya ma loo geli war laba farooda marka loo ma qaadane mayo haa mayo yiri irinta ka baxale maalintaasay qasnadaha noo xireen raashki weli waxaa jiray nimanka qubarada ahaa oo meesha dhooban nimankaas waxay ahaayeen albaabka ku gudban fidnada iyo rabshada cadaabta adduunyada hadday jiri lahayd waa nimanka ku gudbanaayay ahaayeen oo hadday joogi lahaayeen waxa nagu dhacay naguma dhaceen nimanku aad ayay dalka u jeclaysteen iyo dadka iyo aad u jeclaayeen waana badanaa 2000 saacaday ahaayeen wax walba lagama diidi karin warnaga jooji waxay yiraahdeen waa la joojin lahaa dawlado badan oo carab iyo waxyaalahaas la soo hadlay waxa nimankaas isku taabanay xabsiyada ilaa waxay ogeeyeen xagga in laga leeyahay dir Washington iyo Abdullah Abdullah Lijo safiirha garanaysa wax walba waa diyaar taankeedii lagu bedeli lahaa waa diyaar maraakiibtii waa diyaar madaaficda diyaar ciidanka dhulka iyo wixii oo dhan diyaar nimanka eri jaale madaxweyne nimanka eri nimanka asagoo walba shaki ka qabay ciidanka maxaa jira barnaamijkiisii oo waday warmay ciidanka iyo waa la dareemay inuu wax xun wado ninku waa barina ay balaayadeeda weli hore u sii wado la dareemay akii jafay nimankii markoo jafay markaas albaabkii fidnadoo dhan soo galay biroo dhan markaas noo soo dhacday waa bari nimankii ahaa ayadoo munaasabad la xusayo ayaa waxaa la dhigay ruwaad kacanka lagu faani jiray hameen bay waxay la soo baxeen laba barnaamij ay u diyaariyeen munaasabadda mid oo sidii hore ah la arkay jaabasiyaada iyo mid destructed baabiinaya waxa dhan oo laan gurusar gado inaad maqashaan in kale ma ogi soo bari galnay waxay dhaheen gurigoo mugdiya biyihiina go-een soo bari galnay laan gurusar gado guuxiisa mood gob inaad ku tahay geeska Afrika inta ka siyaa ayaame farahay kas warninko ali soo fadhiya ma ogtahay bustoolow burcadii jawjawska iyo bukaasaba la soo dhaafalay ma ogtahay bustoolow asaga burcadii jawjawska waa saaxiibadiisii iyo bukaasaba la soo dhaaf maxaa adiga meesha ku dhigay waa qarax halkaas ka dhacay ciidankii iyo waxayna dagaalkii wixii ku jira wixii oo dhan la ogaaday ninkan fidnada waa